aad baan kuu salaamayaa waan kaaga mahadcelinayaa gurigaaga aad igu soo dhaweysay iyo ballankii interviewga aad naga aqbashay su'aasha ugu horeysa cabdiraxmaan waxaad wareejisay xilkii guddoomiyenimada xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhowr sano aad haysay maxaa arrinkaa keenay atoosh waa ku salaamay marka hore soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow shalay bay ahayd maalintii labaad ee shirweynaha waxaan si rasmi ah u wareejiyey oon ka tanaasulay inaan u tartamo xilka guddoomiyaha xisbiga wadani aan muddo soo hayay 10 sano ku dhow kow horta dee 10 sano ku dhowaad baan hayay xilkuna waa meerto anigu waxaan qabaa wixii 10 sano ka badani xilalka madaxweynaha lagu xadiday 10 sano marka 10 sano wixii ka badan xilhayntu waa muddo kordhintana aan ugu diyaarumay laba xisbigu korayay inta dad baa ku soo jiray dadkuna way korayeen xisbigana waxaan astaan u tahay wareejinta wareejiyay inuu yahay xisbi la wada leeyahay oo dadku hankooda ay ka dhaxeli karaan waayo xisbi wadani waxaan doonayaa inuu ka bedelo axsaabtii sumadooda ahayd in odayga hor fadhiya inuu ku suntanaado guddoomiyuhu hadduu tartamo aan lala tartamin marka dhaqankaasaan doonaya inaan bedelo oon curiyo dhaqan cusub oo guddoomiyuhu isagoo xaq u leh oo weli kursiga fadhiya inuu ku dhici karo inuu yidhaaho waan ka hadhay waxaan doonaya inaan muujiyo wada lahaanshaha axsaabta waxaan doonaya inaan muujiyo is-aaminaad siyaasadeed waxaan doonayay inaan bedelo dhaqankii ahaa in beeluhu gacmaha isu dhiibaan oo la yidhaahdo beel baa beel ku wareejisay waxaan doonaynaa dadka xisbiga ku jira ee ku barbaaray ee koray 10 sannadood inay xilka la wareegaan in fursad la siiyo dhalinyarada marka sababaha awgeed ayaan uga tanaasulay inaan anigu sii noqdo guddoomiyaha xisbiga imisanaad hadda xilkan aad wareejisay aad haysay xilkan si rasmi ah wadani wuxuu noqday xisbi 26kii bishii 12aad 2012kii intii ka horeysay urur buu ahaa 12kii ilaa waqtigan ku sheegay marka haddii dee la eego maalintii xisbi lagu dhawaaqayna waa 9 sannadood oo wax dhiman haddii la eego maalintii aanu aasaasanay ururkana waa 10 sannadood si kale haddii loo dhigo inaad xilka wareejiso deedna guddoomiinimadii xirsi xaaji cali loo doorto ma la isdhihi karaa dabcan dana siyaasadeed iyo soo jiidasho gobollo kale ama dad kale yaa ka dambeysay meesha kama saari karo waayo waxaanu doonayaa dadka xisbiga ku jira qof waliba deegaan buu ka soo jeedaa guddoomiyaha baarlamaanku deegaan buu ka soo jeedaa guddoomiyaha cusub deegaan buu ka soo jeedaa madaxda kale la doortay shalayto mid waliba deegaan buu ka soo jeedaa qaar baa wadal ka soo jeeda qaar baa maroodiyaha ka soo jeeda qaar baa saaxil ka soo jeeda gobollada dalka oo dhan ka soo jeeda taa macnaheedu waxa weeye dee xisbi la wada leeyahay dhammaan gobolladii dalka cod baan ka doonaynaa dhammaantood sidoo kale inaad xilka wareejisay ka sokow musharaxnimadaadii madaxweyne ee doorashada soo socota yaa la ansixiyey shalay maxay taa kaaga dhiganta cabdiraxmaan horta xisbigu waxaa lay doortay inaan musharax madaxweyne noqdo 30kii Maarch 2012kii shirkii golaha dhexe sida xeer ku dhigayana go'aamada shirka golaha dhexe wax lagu ansiyaa shirweynaha marka shalayto waa la ansixiyey taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay in xisbigu dhammaantii isku raacay inaan ahay musharaxa xisbiga wadani 2022 November haddii la yiraahdo misleedahay wadani waji cusub ay la timid mar haddii doorashadii hore waad ku guuldaraysateen laakiin dabcan maanta waxyaabo kale oo aad kaga horeysaan baa jirta xisbiyada kale oo doorashadii u dambeysay golaha deegaanka iyo tii golaha baarlamankaba tiro badan baad haysataan marka misleedahay wadaniyo waji cusub baa hadda timid wadani sidaan kuu sheegay dee wajihiisuna way cusub yihiin waana badan yihiin doorashadii ugu dambeysay ee golaha wakiilada iyo deegaanka xisbigii dee isagoo mucaarada wuxuu noqday xisbiga ugu kuraasi badan golaha wakiilada xisbigii ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka xisbigii ku guuleystay 4 ka mid ah 6 gobol inay maayar ka noqdaan
marka taas waxay tusinaysaa koritaanka xisbiga koray imakana waxaan rajaynaynaa inta ay ka badan inaan ka helno haddii alla ka dhigo shacbiga Soomaaliland codkooda. cabdiraxmaan arrinta aadka loo durayay intuu shirka natiijadiisa soo baxday waxaa ka mid ah haweenka oo dee 6 gudoomiye ku xigeen hal qof unbaa dumar ah taasoo dhali lama dhigi karo haddii dee waa relative waxaa la yidhaha ingiriisigo marka taa la eego waa dhaliil 6 qof oo ku xigeena inuu mid haween noqdo laakiin waxaad barbar dhigtaa labada xisbiye kale midna hogaankooda dumarku ma jiro marka hadday dhaliil tahay noqon karin markaas marka kuwa kale dhinac dhigo laakiin dhaliishii in lagu faano maahan soo maahan adigu gudoomiye nimadii aad wareejisay waxaa kala wareegay xirsi 6 xirsi ku xigto mid unbaa ah xogiyihii hogaanadii kale waxaan kugu darayaa waxaa jiray 6 xubnood oo nomination ah oo hogaanka ku biiray anigu ka mid ahay 6 gabadh baa ku jirta marka hogaanka xisbiga hadda laba haween ku jira waa kartay soo lagama badin karin waa laga badin karay laakiin waa bilow fiican waa gartay waxyaabaha aadka loo durayay dabcan wax badan oo wanaagsan baa dhacay waxaa ka mid ah wixii meesha ka dhacay oo dad badan ay leeyihiin dee bannaanka lagu soo hagaajiyo qof walba xilkuu qabanayay deedna meel marin ahaan iyo gacantaaga unbaa lagu xalaaleynayay taa mis leedahay waa dhaliil xagga dimuqraadiyadda oo xisbiga wadani loo jeedin karo sida loo dhigay ku xidhan tahay wixii dadku ku heshiis yahay waxaan u arkaa inay sax yihiin marka in dibadda lagu heshiiyo waa adduunka oo dhan bay ka dhacdaa Labour Party ka dhacdaa xisbiga dimuqraadiga ka dhacdaa Republic ka dhacdaa xisbiga gudihiisa wixii lagu soo bislaayo ee aqlabiyadu isku raacdo waa la hor keeni karaa golaha xaq baan u leeyahay inay diidaan iyo inay ogolaadaan labadaba wadani 3 doorasho galay oo tii u dambeysay hadda aqlabiyada faraha badan golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka aad ku yeelateen misleedahay idinkoo ka duwan wadanigii hore la yaqiinay yaa tan November sanadka soo socota aad gali doontaan kow waxaan doorashadii dhaweytay waxay muujisay shacbiga taageerada ka haysta xisbiga waana ku sheegay golayaasha annaga ugu badan hadda 2 wajiyo cusub ku soo biiray gudoomiye cusub ku soo biiray gudoomiye baarlamaan ku soo biiray hoggaan cusub ku soo biiray marka waxaan leeyahay haayo wadanigii 2017 mid ka duwan oo ka xoog weyn baa imanaya hadda la ka dhigo xubnaha xisbiyada kale ka soo baxay idinku soo biiraya waxa idinku soo kordhin karaan maxay tahay horta qof kastaba hadduu ugu yaraado codkiisu la imanaya soo maaha haddana waxba la iman marka halka codna waa lagu kala badiyaa marka waxaan ugu soo kordhinayaa dad badan oo siyaasiyiin oo magac leh ku jira dad badan oo la garanaya ku jira marka waxaas leeyahay wax badan bay soo kordhinayaan qof wasiir ka soo noqday kulmiye ama xukuumadii hore ama kulmiye hogaanka sare ku jiray inuu wadani yimaado dadka say u arki karaan shacabka caadiga ah ee guryaha jooga waxaan ula jeedaa qof la soo tijaabiyo xil xafiiseed qabtay xil xisbi qabtay horta dee xisbiyada waxa loo sameeyey hadduu ku qanci waayo qofku waxaa jiri kara qaar wadani ku qanci waayey dee xaq bay leeyihiin labada xisbiya kale kay doonayaan tagaa ka kulmiye ka yimid wadani yimaada kama duwana mid intuu wadani ka tegey kulmiye tegey cabdiraxmaan November hadduu allaha awoodda la ogolaado yaa muddaxiileedka doorashada ay ku eg tahay ama ay dhacaysa sida lagu wado kalsooni intee la eg yaad ku qabtaa inaysan maalin dib uga dhacaynin doorashada Soomaaliland bisha November 2022 anagu kalsooni bixin ku qabnaa noomana muuqato sabab loo kordhiyo oo muddo kordhin u dhacdo sababtu waxa weeye dadkii codeynayay 80% marka badan ay waa diiwaan gashay guddiga doorashooyinka qaranku waxay ku dhawaaqeen inay doorashadii wadaan iyo hawsheedii madaxweynaha waxay la kulmeen bishii 8aad wuxuu amray inay soo diyaariyaan budgetkii iyo timeline-kii wax kaloo ka dhiman oo imakaan isleenahay waa qabyo ma jirto waa gartay dhaqanka lagu yaqaano doorashooyinka Soomaaliland wax un baa soo bixi jiray qadar alla ha ahaato laakiin haddana marmarsiin lama waani jirin oo inta badan
haddaan xasuusanno taariikhda doorashooyinka madaxweyne walba wax unbuu ku darsanayay muddo xileedkiisa dastuuriga ah walwal ma qabtid innaba anigu walwal ma qabo sababahay u kordheen doorashooyinkan isma garanaya oo goobjoog baan ahaa 2008 doorashadii madaxtooyada dhacday ahayd erigii madaxweyne Riyaale sabab qura loo kordhiyay sababtaasina waxay diiwaan gelin oo 2009 la bilaabay siinay xilka hore wuxuu kaga eekaa 2015 sababta loo kordhiyay waxay diiwaan gelin waxaan la bilaabay 2016 maanta diiwaan gelintu waa noo diyaar diiwaan gelin kala dhacaysa ma lahan waxa laga yaabaa 10% 15% dadka in loo baahdo taasina waqti badan qaadan mayso yaa ku heshiinaya marka baahidaas uma baahna in lagu heshiiyo waxay ku socotaa qorshahana commissionka fulinaya iyagana wax saaran hawshaas kalsoonida guddiga doorashada aad ku qabtaan gaar ahaan xisbigeena mucaaradka wadani intay gaarsiisanta anigu kalsooni ma siinay doorashadii horeba way jirtay markii la bilaabayay iyaga laftigooda la doortay inaanu ka keenay dood laakiin taa waa laga soo gudbay waanu aqbalay kalsooni baanu siinay doorashadii bay qabteen tanna kalsooni baanu siinay inay doorashada qabtaan kalsoonida ma waxaa ku geliyay doorashadii aad ku guulaysateen golaha deegaanada iyo golaha baarlamaanka maya berigii hore daanagoo dood ka qabnaanu kalsooni siinay inaan ku guulaysanayno maanaan ogeyn inaan deegaanka u badanayno iyo baarlamaanka dee maanaan ogeyn ka hor baanu kalsoonida siinay maantana waa siinaynaa sida doorashada qabtay waayo hadda markaa ka waaya aragsan intii berigii hore aan markay qabanayeen marka shaqay soo qabteen waa la tijaabiyey weli kalsoonidaanu siinay waan u haynaa waa siinayna doorashadii ugu dambeysay ee aadan ku guulaysanay 2017 iyo maantoon joogno markaad isweydiiso Cabdiraxmaan kaliga adigoo ah ma ka kalsooni badan tahay berigaas hawa kalsooni badan tahay waa xisbigu koray xisbigu berigii hore halku taagnaa wuu ka koray doorasho kale uu istijaabiyey baarlamaankii isagaa u badan gudoomiye baarlamaanka isagaa leh maayaradii ugu waaweynaa gobolada 4 ka mid uu leeyahay doorashadii ugu dambeysay xisbiga ugu codka badnaa uu ahaa marka xukuumadda la barbar dhigo iyo xisbiyada kale marka kalsoonida taasana siinaysa haddiiba innaba walwal kugu jiro isleedahay xisbiga ku gilgili kara waa ka xisbiga ma kulmiye mise qolada kale u cid horta labaduba dee waa doorasho lama yaraysan karo laakiin waxaa isleeyahay dee xisbigaanu tartamayna hadda waa ka talada haya kulmiyo sidan ah miyaad ka walwalsanta mise kulmiyo weji kale cusub oo la yimid kulmiyaan ogahay dee inuu madaxweyne yahay kulmiyaan ogahay inuu dowladdii haysto kulmiyaan ogahay inuu ciidanka xukumo kulmiyaan ogahay inuu baanka xukumo waxaan diyaar ahay la tartamo waxaan wax warwara ka qabanay ma jirto laakiin intaba laguma galo Soomaaliya bangiga iyo askartaba doorasho ma galay dad ba saf galay cod rida intuba saameyn bay leeyihiin waa gartay intuba saameyn bay leeyihiin waan soo qatimaynaa su'aashan weyna yaro culus tahay kaftan uu ku jira haddii lagu sahlo doorashada yaad isdhihi lahayd ha lagula tartansiiyo anigu dee laba ciddii la tartamaysaba diyaar baanu ahay imaka dee muuse iyo faysal un baan ogahay cid tartamaysa labadoodana diyaar baanu ahay in la tartamo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro aad baad u mahadsantahay adaa mudan